kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qiso kale oo ka mid ah qisooyinka fanka iyo suugaanta Soomaalida. qisada maanta waxa ay daaran tahay ama ay qusaysaa abwaankii weynaa ee Maxamed Cali Kaariye. Maxamed Cali Kaariye waxa uu ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwooda hormuud ku ahaa fanka Soomaalida. waxa uu ahaa abwaanka heesihiisa iyo riwaayadihiisa ay ahaayeen kuwo aad iyo aad loogaga daba dhacay. heesihiisa oo u badnaa jacayl ayaa waxay ahaayeen kuwa loogu jacaylka badan yahay oo dadku ay aad iyo aad u dhageystaan. heesihiisa iyo riwaayadihiisa dhammaan waxay noqdeen kuwo caan baxay oo hirgalay. abwaanka heesihiisa waxay u badnaayeen jacayl oo qofkii dhageysta heesihiisa ama jacayl ha hayo ama yuusan haynin qalbiga ayay kaga dhacayeen. haddaba qisada maanta abwaanka ku saabsan maaha qiso khusaysa heesihiisa, suugaantiisa iyo weliba fankiisa toona. qisadani waxay tahay qiso abwaanka ka qabsatay dhulkii uu ku dhashay ee uu ka yimid. qisadani oo ah mid aad iyo aad u xanuun badan ayaa waxa ay tahay mid qofkii maqla uu aad iyo aad ugaga tacajubo. abwaanka Maxamed Cali Kaariye Allah u naxariistay oo isaga ka soo jeeda dhulka deegaanka Soomaalida ee Amxaaradu gumaysato ayaa isagu waxa uu yahay abwaan halkaasi dadkiisa iyo qabiilkiisa ay yaaliin. deegaankaas oo qabaa'ilo kala duwan oo Soomaaliyeed ay degan yihiin ayaa abwaanku waxa uu qabaa'iladaasi mid ka mid ah kala kulmay qiso aad iyo aad u xanuun badan. haddaba abwaanka weyn Maxamed Cali Kaariye walaalkiis oo lagu magacaabayay Bile ayaa waxaa si dulmi cad ah u dilay nin ka mid ah qabaa'ilada halkaasi dega. haddaba sida qisadu ay tibaaxayso, ninkaasi dilay Bile waxa uu doonayay in geel iyo xoolo uu lahaa uu ka dhacayay. haddaba si kastoo ahaataba abwaanka walaalkii si dulmi ayaa loo dilay. abwaanka iyo tolkiis waxa ay isku dayeen in ninkii walaalkii dilay qabiilkiisa ay la macaamilaan. abwaanka walaalkiis waa uu duugtay, kadibna wuxuu go'aan ku gaaray dadkii walaalkii dilay inay u xaajo tagaan waxay kala kulmaanba. laakiin abwaanka iyo tolkiisa waxa ay kala soo kulmeen qabiilka walaalkii dilay oo sida sheekadu ay tibaaxaysa ahaayeen ogaadeen in ay diideen inay la fadhiistaan abwaanka. ogaadeenka walaalkii dilay oo iyagu isbidaya awood u arkayeena qabiilka abwaanku ka soo jeedo qabiil aad u hooseeya, awoodna u lahaynin inuu la macaamilo ama inuu wax ku sameeyo. waa ay diideen inay ka bixiyaan dilkii Bile diyo iyo mag toona. sidoo kalena waxa ay diideen inay soo dhiibaan ninkii dilay Bile. abwaanka Maxamed Cali Kaariye wejigabax iyo fajac ayay kala kulmeen dadkii walaalkood dilay. si kastoo ahaataba dulmigaasi cad ayaa waxa uu noqday mid uu liqi waayay abwaanka. abwaanka ayaa wuxuu liqi waayay in walaalkii uu waayo magtiisa uu waayo iyo diyadiisa, welibana ninkii walaalkii dilana uu qasaastiisa uu waayo sidoo kale. haddaba si kastoo loola hadlay qabiilkii dilay Bile waa ay bixin waayeen. si kastoo ahaatee abwaanka ugu dambeys markii uu ogaaday in walaalkii mag iyo diyo toona uusan ka helaynin, qasaastiisana uusan helaynin, wuxuu go'aan ku gaaray inuu isagana tallaabo qaado. abwaanka ayaa ahayd tallaabadaasi uu qaadayay inuu ka arguto ninkii walaalkiis dilay. si kastoo uu ku helayana uu tafaxeetay. sida qisadu ay tibaaxayso ama sheekada, abwaanka ayaa isagu habeen fiid ah meel cidlaha wuxuu ka helay ninkii walaalkii dilay. go'aan meel u yaala ayuu ahaaye abwaanka ninkii ayuu ka takhalusay isagoo u aragudaya walaalkii Bile. abwaanka oo ogaa in hadduu halkaasi sii joogo la dili doono, isagoo weliba baxsadkiisana usii diyaarsanaa, ayuu dhulkii deegaankii ay deganaayeen isagiyo tolkii ka soo baxsaday. abwaanka baxsadashadiisii waxa uu ku yimid magaalada Muqdisho oo uu nolol cusub iyo weji cusub uu ka bilaabay.
haddaba ninkii qabiilka laga dilay waxay ogaadeen in dilkani loogu argudayay bile qabiilka abwaankana ay tallaabadaasi ku dhaqaaqeen si kastoo ahaataba waxaa la ogaaday in abwaanka weyn maxamed calkaariyo isagu falkaasi geystay halkiina uu ka baxsaday labadii qabiil waa la dhexgalay si aysan fidna halkaasi ugaaga imaanin iyadoo xal laga gaadhay maadaama labada dhinacba ay qof iska dileen heshiisna ayaa laga gaadhay oo dilkaasi halkaasi ayuu kusoo dhammaaday kastoy ahaataba abwaanka ayaa isagu qisadaasi iyo weliba falkii wuxuushnimada ahay walaalkii uu ku waayey iyo weliba u argudidiisii qalbigiisa waa ay ka bixi weysay waxay noqotay utun ku taagan mar kasto iyo xilli kasta hees caan baxday ayuu ka sameeyey abwaanka qisadaasi heestaasi oo lagu magacaabo balaayo abwaanka ayaa heestaasi wuxuu kaga sheekeynayaa balaayadii halkaasi ka dhalatay iyo weliba sidii walaalkii loo dilay dhibkii uu kala kulmay sidii uu u liqi waayay walaalkii mag iyo diyo toona laga bixin waayo welibana qisaas uu u waayay heesta oo ah hees aad iyo aad u macaan badan qisada ayaad la socon doontaan oo heesta ayayba ku dhammaystiran tahay qisada heesta waxaa ku luuqeeya fanaanka weyn ee maxamed axmed kuluc heestana waxaa u dhaceysay sida tan الليلة بلايو من بعد هيستو الليلة بلايو وهذي عذيبو كوبا غيب عنعس الليلة بلايو من بعد هيستو الليلة بلايو وهذي عذيبو وباغي ونعس الليلة بلايو هدينا بادو الليلة بلايو نككو برديني كبح صدي دوافولي الليلة بلايو لسكو باري تراتا لايقانا تشد بحي واوا بلتك ما سمراي لايقانا تشد بحي واوا بلتك ما سمراي ولا يبادي أمها وبيعي سنايا ولا يبادي أمها وبيعي سنايا هي بلايون لكبقى شأوقيت الليلة هي بلايون وفي سكا قلي فريوا الدوكي الليلة هي بلايون لكبقى شأوقيت الليلة هي بلايون سكا قلي فريوا دوكي الليلة هي بلايون نكخوك بالي الليلة بلايون بدنشي غناي اسمي ذا القوة الليلة هي بلايو نكحوك وبالي الليلة هي بلايو بدنشي غناي اسبي ذا القوة الليلة هي بلايو لسكو باري
كما سمراي لا يغنى تشد بحيوة بلا كما سمراي والله يفادي بيه سنايا والله يفادي بيه سنايا. haddaba heestaasi halkaas aynu kaga gudubno. haddaba daawadayaal qisadeeni maanta halkaasi ayaynu kusoo gabagabeyneynaa. qisad kale oo aad u xiiso badan oo tan la mid ah ama ka duwanba intaynu dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiina nooli kulanti iyo amaano allah.